أصحاب تقاليقا عاو waxay wadnaa barnaamijkeena ila tali ma aha talada amaanta doonayo assalaamu calaykum saaxiibada qaaliga ee ku xiran channelkeena Burhaan Breeqo kuso dhawaatay inta markii kugu horeysa channelka subscribe noo saar videogana noo like haddii aad hore noola joogtana aad ayaa mahadsan tahay sida quruxda badan aad u daawata videoyaasheena waqtigaagana nagu soo gelisay asxaabta qaaliga caaw waxay wadnaa barnaamijkeena ila tali gabar Soomaaliyeed ayaa wax naga soo codsatay inaan la talino sheekadeedana waxay ku bilaabanaysaa sida tan magacaygu waa Farxiyo dhawaan ayaan isguursanin oo horay u soo maray xaas kale oo aanan aqoon u lahayn waxa is qabnaa hadda muddo laga joogo 3 bilood run ahaantii waa nin aad u qiimo badan ina dareensiiyay waxa aan ahay iyo waxa aan u qalmo inkastoo uu guurkeenu cusub yahay haddana waa xaalad dhihi karaa ilaa xad uu i qanciyay dhan walba ma aha talada amaanta doonayo mid ku saabsan dhibaato iga haysata xagga ninkayga warar waxa ay soo gaaray sheegaya in ninka qaba xaaskiisii hore ay la xanuunsan tahay xanuunka HIV/AIDS subxaanallah shaki igalay dartiis ayaan u aaday una booqday xaaskii hore aniga oo doonaya in aan bal ogaado xaqiiqada dhabta iyo arrintu in ay saameyn ku leedahay ninkayga waxay ii sheegtay in isaga ay ka qaaday cudurkaas sababtaas darteedna ay isaga furtay asaga inay ka qaaday cudurka sababtaas dartiisna ay iska furtay iyo sheegtay anfariir xoog leh ayaa igu dhacay waxaana ahay gabar 25 sano hadda sii galaysa oo doonaysa mustaqbal wanaagsan arrinta hadda la sheegayana ma ahan wax i farxad geliyay isla markiiba waxaan ku cararay dhakhtarka ii dhawaa kaas oo aan baaritaan ku sameeyay nasiib wanaag natiijada soo baxday ayaa noqotay in cudurkaas aanan qabin ninkayga ayaan weydiiyay bal in warkaas jiro iyo in kale uu se iga dhaartay oo wuu inkiray in waxaas jiraan iyo in kaleba waxaan ku noolahay shaki dhakhtarkii aan u tagay markii uu iga waayay cudurka ayuu igu yiri 3 bilood kadib u imow baaritaan kale si loo hubiyo in aad qabtid iyo in kale cudurka muddadii markii ay dhamaatay waan u tagay wuxuu ii sheegay in aan waxba qabin aniga shaki ayaa la noolahay ninkayga waa jeclahay isagana wuu jecel yahay laakiin wararka aan ka helayo xaaskiisa iyo dadkii hore u yaqaanay waxay caddeynayaan in cudurkaas lagu sheegay ninkayga mar walba oo aan dhaho soo bax aan isi soo baarne wuu ka diidaa mar walba markuu ay tiraado aan isi soo baarno walaalo soo baxa isi soo baarno cudurkaas ka soo baarno wuu ka diidaa asaga ma aqaan wallaahi wax aan sameeyo dhowr jeer ayaa ifur iri wuuna iga diiday cudurka ima hayo hadda oo alle wuu iga badbaadshay hadduuba ninkayga qabay iyo haddii kaleba nolosha in aan la sii wadaago ninkaas way igu adag tahay haddana waa ninkaygii maxaan sameeyaa asxaabta qaaliga ila taliya saaxiibada qaaliga ah gabadhaas walaasheena waxay soo codsatay inaan la talino aniga Burhaan ahaan haddii gabadhaas aan la taliyo waxaa kula talin lahaa gabarey ninka waxaa ku cadaadisaa in uu isbitaalka ku raaco oo cudurkaas ka soo baartaan waayo cudurka wuxuu halis u yahay adiga nafsadaada iyo asaga nafsadiisa mid hadda ka iraado ninka xaqiisa qofka markuu daacad yahay oo aad adiga shaki uu ku galo ama wax soo maqasho oo aad tiraado walaalo macaan aniga waxaan soo maqlay arrintan soo boqol iga jaahil bixi qofka daacadda ma meermeerayo wuxuu leeyahay soo bax isbitaalku ku raaci lahaa uu soo baari lahaydeen laakiin hadda laftimir ayaa ku jirto
wuxuu u diidayaa inuu isbitaalka ku raaco ama cudurku iska soo baaro waxay tahay in lafta mir ku jirto oo ay wax meesha ku jiraan. marka waxaa ku cadaadisaa ninkaas inuu ku raaco oo aad cudurka iska soo baartaan oo aad nafsadiina aad ogaataan. waayo adiga gabar yar ayaa tahay, mustaqbalkaaga hadduu ku cusub yahay, asagana sidoo kaleeta weli cimri ayaa u dhiman. marka labadiina waxaa wanaagsan inaa is soo baartaan oo ay iswacyigelisaan. haddii uu kaa diidana waxaan kugula tali lahaa inaa ka tagtid, waayo qofka bini aadanka ah hadduusa adiga daacad ku ahayn wax uu kuu faa'iideynayo male. noloshaadana waxba uma faa'iideynayo, mustaqbalkaaga dambena waxba uma faa'iideynayo. nolosha labada qofood waxay ku wada noolaan karaan inay daacad isku yihiin. marka labada qofood haddaysan nolosha daacad isku ahayn nasin wax meeshaas yaalla ma lahan. asxaabta qaaliga adinkana la soo taliya, bal wixii fikradiina ah kusoo darsada. aniga waa intaas fikradayda, waana ka xumahay gabadhaas walaashaya waxa ku dhacay. shakiga asaga ayaa cudur ah. run ahaantii qofka bini aadanka hadduu shakiyo asagaa cudurka jirkaaga ku jira mid lamida asagaa ah. marka walaashay khayr allah ku siiyo, waa sabartay, waa nala soo wadaagtay. waxaan kugula talin lahayn taladeena waa intaas. asxaabteena qaaliga ee ku xiran channelkeena Burhaan Buraaqo, idinkuna la soo taliya gabadhaas. commentiga waxaa la wixii fariin ugu soo reeba, videogana like gareeya sida asxaab badan u gaaro, channelkana subscribe gareeya. aad iyo aad u mahadsantihiin.